daawada kana waa cato share saaka waraysi uu bixiyay ayaa wuxuu ku sheegay in qabiilka uu kusoo jeedo dartiis reject loogu dhaafay fiisaha dalka Turkiga. Cato share ayaa dhanka kale wuxuu sheegay laba wiil isku marxalayeen baraha bulshada caanka lagu magacaabo Lucy iyo Guuxaye ayagana si easy ay ku heleen fiisaha dalka Turkiga asayna loo sheegay inuu kusoo jeedo Eili iyo beesha Jareerweyne. Cato share hadalka sii wata ayaa wuxuu sheegay inuu ka filanaynin in maanta Soomaaliya 2022 lagu jiro in qabiilka Jareerweyne ahaan loogu diido fiisaha dalka Turkiga. Waraysiga oo aad u yaraa oo siinayay idaacadda Xogbile ayaa dhanka kale Cato afkiisa wuxuu ku taabtay inay aad u taawada arrintaasi. Bal daawadana la daawo hadalladii Cato share uu ku sheegay in qabiil dartiisa loogu diiday fiisaha dalka Turkiga oo aad u xiiseynayay dad badan baxan oo la ogyahay Guuxaya baxay Lucy baxay way dalbada reject malasiin aniga waxa la uu sii waa dareemay inaa qabiil la uu dhagan yahay luul cuweyd marka hadii aan ka jawaabo arrinta fiisaha waxa jira dad badan oo Turkiga aaday ay ka mid yihiin Guuxa iyo Lucy iyo dad kale oo Cato share wuxuu sheegay in markiis uu horeysay ay ahayd uu xariyay fiisa dalka dibadiisa ah واسد هذا كل اللي حتى كهر ولي جسمه بحن فيزا تبدنا وما عادين ومركز رئيسي وحنا لوج بدري إنه كسر جدا قبيلة كجريروينه. راب الشدة عنك إن هالمرة يضل وين بحين. أنا يقول الشيء ذا وحي مركي رئيسي أو عند البلد فيزا وطن كلا أو فيزا إنترناشنال عالمي إن حوج عن هالوحي إيش إن لا حقوقي أو باش عن كسر جدا أو لا تعجريري إلى كسر جدا هذا qabiiladaas ka soo jeedaleeyeen maanta fiisaa banaanku ahaa la leedahay oo uqdad leegilay anigoo aan muwaadin Soomaaliyeed xur ah xaqna ku leh wadan walba inuu aado horta Soomaalida waxa isaga qalsan qabiilkii qabiilka waxa lahay isku aqoonsada maahan maladeen isku dila maladeen hadii qabiil uu wax tar lahaa Nabi Maxamed wuxuu ka soo jeeday Quraysh oo nin Arab uu dheeraysan oo ahaa saas ay oo saaxiib dawla ahaa iyo dad kale oo kala wadan ay yihiin marka qabiilkan horta wax jira ma aan oo Soomaaliya ka jiro oo daba waxay iska dhaadhiceen qabiil hadii la waa inay dhimanayaan